qofka meydka ah oo la keeno masjidka ma muslima ma gaala ma niraahno sababtoo Soomaalida muslimka aaminsan dad muslimiina dhammaan asalkooda waa dad muslimiina qofka asoo islaamnimada ka baxay u taal waa qof gaar oo asagu diinkiisa ka tagay laakiin asalka ummadan Soomaaliyeed muslimiina u naqanano deeda waxa dhacday masjid waalidayn maalintii 10 janaasa in lagu tukada dhacday maalin aan janaasa lagu tukadan ma jirto mana niraahno hadii la soo dhigo meydkaanu muxuu yahay ma niraahno bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad سائلك وحولية ما أنت وحال شيء مسجد الوالدين ميت إن لك كاني جناسدين اللي قلت كدي ما حيها تصلت مسجد الوالدين ومسجد وين كويا لا طبع لها إكس كنترول أفجوي أنت ولا حيدا لا ميغنا الصعر مسجد الوالدين صحيح وصح أنا ما تشوفين دور كي لكن علماء تشوفتان وعي مركن وركن مغلي جناسة لك كان أنا واحد من شيء إن dadka Soomaaliyeed dad muslimiin ka aaminsan qofka meydka ah oo la keeno masjidka ma muslima ma gaala ma niraahno sababtoo Soomaalida muslimka aaminsan dad muslimiina dhammaan asalkooda waa dad muslimiin qofka asoo islaamnimada ka baxay u taal waa qof gaar oo asagu diinkiisa ka tagay laakiin asalka ummadan Soomaaliyeed muslimiina u naqanano saas daraadeeda waxa dhacday masjid waalidayn maalintii 10 janaasa in lagu tukada dhacday maalin aan janaasa lagu tukadan ma jirto mana niraahno hadii la soo dhigo meydkaanu muxuu yahay ma niraahno hay'ad meesha Soomaaliyeed degan Soomaalina waa noo muslim waa lagu tukada maanta laakiin culimadii markii la keenay waxay yiraahdeen dadkii meydka la socday qaar kamid ah soo hormaray markaasay u sheegeen culimadii yiraahdeen meeydan wadna waana taariku salaad hadad ku tukaydan idin taal waa dadkii la socday ugu علماء waxay raadeen meydka adiga maal waday anigu waxbaan ka wada magaciis saddexdiisa magac u sheeg intaas culimadu go'aan kuma qaadan waxay siraadeen amay tahay qof ooga kala dhixay go'aan kuma aysan qaadan ee salaadii duhur markii la tukaday janaasadii dadkii waday soo istaageen yiraahdeen dadka xigtada ah soo istaaga waxa soo istaagay walaalkiis la dhashay iyo wiil asagu dhalay meyd marka waa la weydiiyo waxa la yiri meydka aad wadaan waa kuma saddexdii magacay sheegeen ninkii hore sheegay waxa yireen meydka salaada ma tukan jiray walaalkii wiilkii yiri war aabaha ma tukan jiray wiilkii wuxuu cadeeyay inuu salaada ka tagi jiray aabbo salaada ilaahay inuu san ilaali jirin oo ka tagay uu cadeeyay wiilku markuu sidaas cadeeyay culimadu yiraahdeen qof asagoo noolo caafimaad qaba salaada diiday markuu dhinta ku qasbi mayno kuna tukamayno ee naga qaado waana sidaas qofkii asagu yiraan anu taariku salaadan wada ma ku tukanayn maxaa yeelay nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay man taraka salata faqad kafar nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam nabigeena suuban hatta dadka aan qulubta iimaanka ka rumaysnayn ee afka islaamnimada ka sheega islaamnimo kula dhaqmi jir wuxuuna yiri al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar annaga iyo ballanka nagala dhaxay munaafiqiinta oo loogu ilaaliyo muslimnimada loogu ilaaliya waa salaada qofka salaada ka taga waa gaaloobay saasi qofkii marka salaadii ilaahay ka tago asagoo caafimaad qaba ilaahay u sujuudi diiday markuu dhinto ku tukamayno إلهي سبحانه كلاك المولي والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد